السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhowow saaxiib. Waa anigii sameynay balansigii videogii aan soo geliyey shalay maanta waxaa rabaa haddii ilaahay kala noqdo balansigii waa inoo diyaarsan yahay, verify waa inagu xiran yahay, laakiine waxaanu ku xiran doonaa haddii ay kala noqdo security, sida loogu xirto security-ga two verification, okay, two authentication ayaan ka wada micnaha. Okay, so waxaad tegeysaa si aad u tagtid to authentication-ka aad soo furatid, saddexda dhibcood kor ayaad tegeysaa. So saddexda dhibcood markaa ku dhufatid, halkaan markaad joogtid waxaad kasii dooranaysaa bartaan ayaad ku dhufsanaysaa. Qaybtan ayuu kuu soo saaraya oo xogtaada gmail-kaaga iyo kuu saaran. Then anaga waxaa u baahannahay qaybtan security-ga verification mar horaa sameynay, verified oo yahay. So security-ga ayaan imaanaynaa. Waxaan ku xiran doonaa haddii ay background noqdo finger, sidoo kale waxaan ku xiran doonaa two authentication ayaan ku xiran doonaa. Saaxiib, intaana sii gudagelin muuqaalka, haddii aad channelka ku cusub tahay, fadlan ayar subscribe dheh, sidoo kale videogana like dheh, dhiirigelin bay ii tahay, lana share galay saaxiibadaada muuqaalka. Mahadsanid. Okay, aan usii gudagalno, waxaan u baahannahay marka hore qaybtan security-ga ah. Security-ga intaana galin oo shaqo aan ka qabanin, waxaan u baahannahay application loo yaqaano Google Authentication application loo yaqaano ayaan u baahannahay. Okay, authentication-kaas ayaa waxaad kasoo degsanaysaa haddii ay background noqdo Play Store-ka. Play Store markaad kasoo degsatid, waad set up garaynaysaa oo login ayaad u sameynaysaa. Okay, ani already waad isticmaalayay, laakiine authentication waa kana. Okay, authenticator ayaa loo yaqaanaa. Authenticator markaad saas u qortid, qoraalkaas aad saas u qortid, Google Authenticator waa kaas marka. So anigu ii degsan yahay, hadda gudihiis ayaan geli doonaa, kadibna waxaan ku tusi doonaa qaabka loo habaysan doono. Horey ayaan u isticmaali jiray sida ujeediinba, balansigii hore iyo program kale ayaa igu jiro. So waxaa u baahannahay hadda inaan ku laabano kan markaad set up gelistid oo gmail-ka aad ku xiratid, waad soo bixaynaa. waxaan tegaynaa haddii ay background noqdo balansigii ayaan ku laabanaynaa, security-gii ayaan dooranaynaa, halkaa ahayd security-ga ayaan ku dhufsanaynaa. Kadib laba midba waan ku xiranaynaa si amnigeena aan u adkayno oo u ilaalino amniga balansigeena. Okay, waa kana mid koowaad aan u baahannahay waa passkey oo ah inaad finger ku xiratid ama face aad ku xiratid. Sidoo kale authenticator app ayaan u baahannahay si aan u samaysano asagan. Kowdii aan dhahno recommended-kan aan doorano oo fingerka ah ama face-ka ah. Marka saas u dooratid kadib wuxuu ku leeyahay add passkey ayuu ku leeyahay. Haddii mobilkaaga uu finger kugu xiran yahay, add passkey haddii aad dhahdid, continue dhahdid wuu qaadanayaa. Haddii usan kugu xirnayna markaas inaad kusoo xirtid ayuu u baahanayaa. So add passkey ayaan dhahay, waa ka passkey ayuu weydiinayaa ama security key uma baahani. Marka passkey ayaan doortay oo midka sare ah. Midka sare oo passkeyga marka aan doortay, meeshan ayuu keenay. Kadib wuxuu iga rabaa code kaas oo uu ku dirayo gmail-ka. Gmail-ka ayaan code-ka soo fiirinaynaa, then code-ki ayaan bartaan gelin doonaa haddii ay background noqdo insha Allah. So aan tagno gmail-ka meesha aan kasoo heli lahayn. So gmail-ka marka saas u imaadid, waxaan dhihi doonaa refresh ama waa soo jiidi doonaa si oo inoo soo galo code-ka. Then wuu inoo soo dhacay code-ka sida ujeedidba. Then gmail-kii ayaan gudagelin doonaa, kadibna copy ayaan dhihi doonaa code-kan yar si aan u xaqiijino in aan ugu nahay. Kadib code-ka ayaan tagi doonaa, kadib waxaan leenahay meesha ku paste gareyn. Okay, paste ayaad ku dhehaysaa, then waad sii gelaysaa. Okay, so hadda halkaa waa noogu soo muuji rabaa, waa ka mobilkay midka igu xiran iyo gmail-kaygii inuu isku xiro. Then continue leeyahay, waa ogolahay. Continue markaan dhahay kadib waa kana hadda wuxuu isoo weydiiyey inaa pin aan isticmaalo ama aan password isticmaalo ama aan fingerkayga aan isticmaalo. So mobilkayga fingerka igu xiran yahay ama pinkayga waan aqaanaa, fingerka ayaan saari doonaa marka si uu qaato. Ugu dambeyn wuu qaatay, sida mobilka inaad furist camal keliya ayaad u saaraysaa. Ugu dambeyn wuu qaatay. Okay, waa ujeedaa September 29 2025 oo 2025 ah. Saas ayaanu ku samaysanay passkey-deeni. Hadda add ayuu ku leeyahay oo far kale ayaad ku dari kartaa. Uma baahni inaan hadda ku daro, saas awgeed waxaan leeyahay ka bax oo waan ka bixi doonaa. Halkaas ayaan ugu bixi doonaa. Okay, kadib markaan ka baxo
waxaan dooran doonaa haddii eebe karaal noqdo qaybtaan kale oo ah to authenticationka ama authenticatorka ah ayaan ku dhufsan doonaa kadib waxaa ku jira meesha code yar oo muhiim ah enable ayaan leenahay si aan u aragno qaybta codeka aan sheegayo enable marka saas u dhahdid okay qaybtii codeka ayuu ku keenay waa muhiim marka codeka inaad save garaystid aniga waa ogahay hadda inay riski tahay sidaas awgeed adi marka ku tusiyo oon sameeyo kadib waxaan samayn doonaa change oo kadib waa iska bedeli doonaa guud ahaanba mid cusub ayaan samaysan doonaa so adigana ogow oo xafido qof kale ha iska tusin sababtoo ah qof kale haddii koodkan uu kaa helo binansigaaga gmailkaaga gees kale uu ka kacsan karaa thenna wuxuu rabo ka samaysan karaa sidaas awgeeda ilaasho oo aad u ilaasho inaad meel fiican dhigatid isku day sababtoo ah haddii adiga nafsirkaaga uu kaa dhumo beri kamaale dib inaad usoo gasho arabtid haddii uu micnaha kaa ahlaabo wax loo yaqaano mobilkaaga haddii uu kaa dhumo ama haddii mobil kale aad u guuraysid you must inaad heshid micnaha koodkan si aad gudaha u soo gashid so koodkan laftirkiisa maa la gelin doona meesha maya lama gelin doono waxaad samayn doontaa koodkan ayaad koobiyan doontaa sidoo kale meelna waad dhigan doontaa maca screenshotkiisa tusaale screenshot ayaad ka qaadanaysaa so screenshotkaas meela ku save garaysanaysaa lamber 1 lamber 2 koodkan ayaad koobi garaynaysaa oo meeshan ayaad ku dhufsan doontaa so meeshaas markaad ku dhufatid koodkii ku koobi garaysmayaa waan baxaynaa kadib waxaan tegi doonaa haddii eebe karaal noqdo google authenticatorkii appka ayaan tegi doonaa haddii eebe karaal noqdo waa kana app marka sidaa u imaadid halkan waxaad ku dhufsan doontaa plus adi haddii aad ku cusub tahay waxaa laga yaabaa inuu halkan blast uu kusoo saaro ama add account oo ku dhaho kadib meeshaas ayaa ka bilaabi doontaa blast ayaan ku dhufsan doonaa kadib labadan shay iyuu soo saaray labadan shay waxaan ka dooran doonaa interset app key ayaad ka dooran doonaa interset app key marka aan dhaho kadib waxaan sii dhihi doonaa halkan magaca binansiga ama magaca aan doono ayaan ku qoran karaa halkan koodkii aan soo koobiyey ayaan dhigi doonaa so koodka waa kaasaa aanan waxba ku darin sidoo kale magacana magaca doontid ayay ku qoran kartaa okay bin aad ku qortay aniga hadda then waxaad leedahay add ayaad leedahay sidaas ayaad ku save garaysatay binkaaga ama binansigaaga koodkiisa marka la joogo mobilkaaga sidoo kale xogtii kalena meel ayaad dhiganaysaa oo hadhow dambe even mobilka uu kaa halaabo meel aad ka heli kartid oo ugu laaban kartid ayaad dhiganaysaa haddii eebe karaal noqdo waa ka hadda mar walibo koodkan ayaa ah koodka loo baahan marka aad wax isticmaalaysid so hadda aan sii galno sii set up garayno waxaan dhihi doonaa next ayaan dhihi doonaa halkan next markaa dhahnay isla markiiba hadda fiir wuu bilaabay wuxuuna weydiiyey 6 digitka waa ka fiiri enter the 6 digit code generated by the authenticator app okay kadibna wuxuu ku leeyahay authenticator app code koodkaas ayaad soo koobiyan doontaa marka hadda laguu sheegay waxaan tegaynaa google authenticatorkeena kadib waxaan dhihi doonaa qoraalkani koobi laakiin kan ma qaadan doono sababto ah wuu dhacayaa inta dhexda ku jirno inuu naga dhacaya laga yaabo oo noo shaqayn diido sidaas awgeed mid active ah ama cusub ayaan qaadan doonaa haddii ilaahay karaal noqdo so hadda waan riixi doonaa si aan u koobi gareeyo dan wuu ii koobi garaysmay kadib waxaan tegi doonaa waana active sa ujeedid haddoo socdaa so intuu shaqaynaya inuusan micnaha kaa dhammaana la rabaa waqtiga ama timeka ku xiran kadib markaa gelisid submit ayaad dhihi doontaa oo gudaha ayaad usii diri doontaa sidaas ayaan ku sameeyey hadda sidaa ujeedinba marka withdrawal aan samaynayo iyo wixii lamid ah wuxuu i weydiin doonaa labadan ayuu i weydiin doonaa so marmar qaarna gmail kusoo weydiin karaa kan ayaa base u ah haddii kan laysla soo dhaafo kan kale ayuu ku weydiinayaa oo authenticatorka ah haddii kale gmail ayuu ku weydiinayaa marka waa kuwan confirmation withdrawalkaaga weeyaan okay si micnaha ina adi tahay in kale loo xaqiijiyo waxaa filaa inaan si wacan aan u fahnay waan isla arki doonaa haddii eebe karaal noqdo withdrawal iyo deposit waan soo samayn doonaa muuqaalo ku saabsan oo isla binansigan cusub aan ku samayn doona haddii eebe karaal noqdo userkana hadda ayaan ku tusi doonaa user baan u samayn doonaa si hadhowdii aad ii dhihin yani waana qaldaysaa qof kale akoon kale ayaad isticmaalaysaa okay user hadda u samayn doonaa haddii eebe karaal noqdo u fiirso waxaan dhihi doonaa engineer okay engineer sayid okay moha okay save ayaan leeyahay marka usernamekeyga saasa ku samaystay continue yes I'm continue now
okay 7 days kadib ayaa bedeli kartaa lagu dhahay waa fahanteen soomaan muuqaaladan inaan dhexdan soo boobsiya isku dayaa waa kasada log ee laga saaray ma bedeli karo up to 7 days inta laga gaaro magac kale ma ku qori karo okay insha Allah biidin illaahi albaari waa ka sida ugu dhaqsiyaha badan ee usoo gelin doona qaybaha dambe ee depositka iyo withdrawal ka sameynaa insha Allah waxaa idin leeyahay inta ka gaarayno muuqaalka xigo ha iloobin inaad channelka qurxisatid oo like subscribe and share as ugu dartid inta ka gaarayno video xigo salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu